بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله الصومالية ميل كستو جوجتان وحنا idinku salaamaya salaanta islaamka waxana aad u salaamaya dhamaantiin meel walba oo aad joogtaan isku soo noqosho wanaagsan anagoo caafimaad qabno oo faraxsan oo Ilaahay noo nimciyay ayaan isku soo laabanay kadib markaan muddo aad u dheer hawada ku kala maqnayn arrimo jira awgood haddaba saaxiibkiin Ismaaciil waa uu soo laabtay caawi waxaan idin kala hadli doonaa ama baan idin la wadaagi doonaa hadduu Ilaahay kala noqdo programyadeennii sideennii hore ayay u socon doonaan hadduu Ilaahay noo saamaxo caaway maadaama waqti badan la kala maqnaa dadku isku xiisa qabaan waxaan rabaa inaan mowduuc yar oo markaasi aan u arkay inuu faa'iido u leeyahay bulshadayda iyo bulshadaadaba aan ugu talagalay haddaba caawa waxaan ka hadlaynaa wax la dhaho faa'iidada dhageysiga ama the importance of listening, a very good listener. muhiimadda qofka wax dhageysto ayaan ka hadlaynaa haddaba dhageysi markaad maqashid waxa kugu soo dhacayo dad fara badan oo aad soo martay xaaladahooda aad isku khilaafteen dhageysi la'aan dad aan is dhageysanayn horta marka hore ay dhageyso waa program waa something that ka dhex jira bulshada anaga marka maadaama Arax Media uu ahaa mar walba qorshihiisa in wax walba oo markaasi bulshada ka dhex taagan aan iftiimino waxaan ka hadlaynaa faa'iidada dhageysiga oo dhowr qodob dhageysiga sidiisaba wuxuu kala baxaa laba nooc oo la kala yiraahdo afka qalaad active listening iyo passive listening haddaba active passive listening waa dhibaatada ugu weyn ee haysato qof walba oo markaasi arkayo problemka dhageysiga dhibaato ayaa ka soo gaarto xilliga shaqada dhibaato ayaa ka soo gaarta xilliga qoyska ama familka dadka xiriirka u leeyahay dhibaatooyin fara badan iyo caqabadooyin badan ayaa ka jiro dhinaca friendska ama dadka saaxiibada ah dhibaato badan ayaa ka jirta asxaabta guud haddii uu yahay qof passive listener ayaa waxay tahay macnaheedu qofka inuu warkii uu maqlo laakiin uusan fahmin dulucda sheekada ay u socoto iyo meesha ka socoto halka active listening uu yahay qof markii afka la kala qaada amaba bishimaha qofka wax ka soo baxayo uu garanayo iska daa maqale laakiin uu fahmi karo dulucda iyo ujeedada markaasi qofkaasi uu ka hadlay waana muhiimadda ugu weyn ee la rabo qofka inuu fahmo haddaba active listener haddii aad tahay waxaa kuu suuragalayo dhowr muhiim oo arrimo ah oo markaasi faa'iidooyin fara badan waxaa ka mid ah it builds connection waxay dhisaysaa xiriir wanaagsan oo idin dhex maro adiga iyo dadka aad la nooshahay sababtoo ah qofku markuu yahay qof wax dhageysanayo qof walba wuxuu jecel yahay problemkiisana u sheego qof walba wuxuu jecel yahay dhibaatada markaasi ku soo korodho inuu la wadaago uu ka dhageysto kadibna uu xal siiyo marka it builds connection it helps you build trust waxay kaloo dhisaysaa kalsooni dhex marto adiga iyo qofka aad la sheekeysanaysid markii qofka aad Ilaahay kuma darnaaday uu ku dhageysto waxaad siinaysaa kalsoonidaadii oo idil marka waa muhiimadda labaad it helps you identify and solve problems waxay xaqiijinaysaa amaba ay kala cadeynaysaa dhibaatada jirto remember qofka markuu yahay qof dhageysta fiican ah uu si fiican u dhageysto waxa u suuragalayso inuu problemka fahmo kadibna xal uu markaasi bixiyo laakiin hadduusan marka horeba qofkii dhageysanin dadkii waxay isku haysteen uusan waqti badan gelinin waxaa suuragal ahaanayso in uu fahmi waayo problemkana uu xallin waayo it helps you increase your knowledge and understanding various topics waxay kor u qaadaysaa aqoontaada knowledge-ga ama cilmiga markaasi iyo fahmadda mowduuca markaas laga hadlayo markaad wax dhageysatid qof walba qofku ka dhageysi badan yahay uu ka cilmi badan yahay uu ka xigmad badan yahay uu ka aragti dheer yahay uu ka Ilaahay kuma darnaadee aqoon badan yahay dhageysigu waa toolka amaba waxa kali ah ee qofka bini'aadanka uu aqoontiisa kor ugu qaadi karo last but not least it helps you missing critical information waxay kugu caawinaysaa inaad heli weydid informationkii
muhiimka ahaa ee laga hadlayay. haddaba qofka hadduu yahay qof aan wax dhageysan sidaan idiin sheegay passive listener ah, wax walbo loo sheego wuu misgareynayaa amaba ma fahmi doono. marka waxaan aniga dhammaanteen aan kula dardaarmaynaa in aan noqono dad dhageystayaal wanaagsan. qofka markuu yahay qof dhageysto wanaagsan waxa u suuragelayso macalinkiisa, asxaabtiisa, ehelkiisa, qaraabada, dadka oo markaasi waqti la qaadanayo xiriirkooda inuu wanaagsanaado. haddaba barnaamijyo noocan oo kala ah oo markaasi aan u aragno in bulshada ay wax u tarayaan hadduu ilaahay kala noqdo sidaad nooga barateen, inkastoo waqti iyo hakad uu nagalay, waan idiin soo gudbin doonaa. waa saaxiibkiin Arax oo idin leh isma dhaafno. hase yeeshee aan idin xasuusiyo in aad subscribe tirahdaan, dadka walaalihiin ee kalena aad la wadaagtaan cilmiga markaasi si adiga aad u faa'iiday, qofka kale walaalkaana ha faa'iido. most important waxa waaye inaad like noo siisid. waxaan idinku kaga tagayaa sidaa iyo amana Allah.